munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay kulliyadda shareecada ee jaamacadda Gollis ayaa lagu sagootinayay ardayda sanadkan ka qalin jabisay kulliyadaasi waxaana ka soo qayb galay munaasabadan wasiiro ka tirsan xukuumadda Somaliland macallimiin iyo maamulka kulliyadda iyo marti sharaf kale ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay Sheekh Mustafa Tarax oo ah hormuudka kulliyadda shareecada waxa markaas xafladan ay daaran tahay takriim iyo tawdiic waxa weeye sabootin si dhaweyn iyo soo dhaweyn ardayda maamuusitaan ardayda iyo macallimiintaba la maamuusayo wixii dardaarana iyo tawsiyaada oo la siinayo aad iyo aad u bogaadinaya dhammaantiin bogaadin baan idin soo diraya dhammaantiin min alqalb ka soo goday aad iyo aadna waan u faraxsanahay dhammaan ilaahay subxaanahu wa tacaala haydin barakeeyo waxaan ilaabi karin guddida markaas waxa weeye xafladan maamuusitaanka ardayda iyo macallimiinta soo qabanqaabiyay oo guddida sare ee waxa weeye ardayda jaamacadda hormuudka waxbarashada sare ee jaamacadda Dr. Cabdirasaaq Axmed Maxamuud ayaa isna hambalyeeyay ardayda qalin jabisay sanadkan farxad waxay inaan ardaydeydii arko gaar ahaan ardaygaygii oo tiigu soo noqday garsoorkii intuu bartay haddana ummadii ugu shaqeynaya haddana soo noqdo isri kordhiso cilmigii haddana qalin jabiyay marka ardaydu waxaan leenahay hamigiina sare u qaada sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirada diinta iyo awqaafta Cabdirasaaq Albani horumarinta biyaha Cali Xasan Maxamed Cali Marraxaan dastuurka iyo xiriirka golayaasha Maxamed Xaaji Aadan Cilmi iyo xildhibaan Axmed Dayib ku cadeeyo oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland ardada halkan xafladoodii caawa maamuuska lagu maamuusayo